kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka nabaad oo haadahan oo kala aad ka daawataan Astaan TV. barnaamijkan oo Cabdiqaadir Maxamed ayaa idin la socodsiin doona. haddii eebaha wadiisa la ogolaadana waxaynu ku faaqidi doonaa muxuu yahay cilmiga deegaanka. faa'iido intee leeg ay leedahay barashada cilmiga deegaanka. barnaamijku waxaynu ku wareysan doonaa khubaro ku takhasusay cilmiga deegaanka, arday barata cilmiga deegaanka iyo sidoo kale dad ka shaqeeya cilmiga deegaanka. ku soo dhawaada barnaamijka oo faahfaahsan. guud ahaan dunidu waxaa ku socda isbeddel la taaban karo kaas oo ay sababeen isbeddelka cimilada ee sii kordhaya, wasakhowga hawada ee ay sababeen warshadaha waaweyn iyo kulaylka xad-dhaafka ah ee dhalaalinaya barafka fadhiya cirifyada dunida. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka ay saamaysay isbeddelka cimilada, walow haddana dadka Soomaaliyeed aanay wax badan ka fahamsanayn isbeddelka cimilada iyo guud ahaanba cilmiga deegaanka. cilmiga deegaanka waa cilmi aad u qiimo badan oo casri ah, isla markaasna nolosha bini'aadanka meel walba aan looga maarmi karin. wuxuu leeyahay khataro badan haddii uu hagaago deegaankaas oo la wanaajiyo. waxaa wanaagsanaada nolosha bini'aadamka noocyadeeda kala gedisan iyo noolaha ku nool oo dhan adduunka wuu wanaagsanaadaa. deegaanka hadduu xumaado waxaa xumaada sidaasoo kale noolaha ku nool kaa'inka nool dhibaato ayuu kala kulmaa. inuu dabar go'o ayaa timaado, cudurro fara badan ayuu kala kulmaa. maxay tahay marka deegaan muxuu yahay? deegaan waxaa weeye waa isdhexgalka waxa nool iyo waxa aan nooleyn. waxa aan nooleyn waxaa weeye waa hawada, biyaha iyo dhulka iyo macdanta ku dhex duugan iyo waxyaabaha ku dhex aasan. waxa noolna waxaa weeye waa bani aadamka, dhirta iyo xayawaanada kala gedisan, ama xayawaano yaryar ha noqdaana ama kuwa waaweyn ha noqdaana. marka waxaa la yidhahdaa waxa nool iyo waxa aan nooleyn isla falgalkooda iyo isku dhex noolaashahooda ayaa waxaa laisku yidhaahdaa deegaan. waxa ku xeeran bini aadamka oo noolo ah iyo waxa aan nooleyn ayaa waxaa loo yaqaanaa deegaan. deegaankaas laba nooc ayuu u kala baxaasaan sheegnay, waxa nool iyo waxaan nooleyn. wuxuuna leeyahay saameyn wanaagsan iyo saameyn aan wanaagsanayn. waxay ku xiran tahay oo mas-uulka ah bani aadamka. wajacalnaakum khalaa'ifa fi lardi. allah subxaana wa tacaala waatan uu leeyahay bini aadanka ayaa wuxuu yahay mas-uulka oo cayaaraya doorka ugu weyn iyo isu dheelitirka deegaanka. waa bini aadanka ayaa laga rabaa mar walba oo uu ku yimaado khalal uu ku yimaado ama isu dheelitir la'aan ee ku timaado deegaanka, wuxuu u gudbaa inuu dhibaato keeno. mar walba oo lisu dheelitiro si wanaagsan lisugu dheelitiro deegaankana waxaa kor u kaca oo wanaagsanaada noolaha noocyadiisa kala gedisan ee ku nool deegaankaas. waxaa socda dadaalada lagu korinayo barashada culuumta deegaanka, haddana waa uu yar yahay wacyiga bulshada ee la xiriira deegaanka. kuliyadda environmental science-ka dadka barto aad u yar yihiin. aan marba waxaa jeclahay waxyaalaha unique ee dadka inaa barto. marka kuliyadda environment-ka dadka Soomaaliya jooga mostly ma fahamsano. waa kuliyad aad u muhiim ah. Kasoo aragtida bulshada ee ilaalinta deegaanka, haddana ardayda qaar ee barata cilmigan ayaa aaminsan in ardaydu aysan waagii hore heli jirin dhiirigelin ku aadan barashada cilmiga deegaanka, gaar ahaanna dhanka gabdhaha. inkastoo taasi ay hadda wax iska bedeleen. kii waxay dhahayeen kuliyadda environment maxaa ka doonaysaa? kuliyadda maxay tahay kuliyadda mala fahamsano. gabdhaha caafimaad inay bartaan u fiican, caafimaadna baritid. caafimaad gabdhaha bartaan aad u badan yihiin, fursadaha yaraanaya. kuliyadana ma fahamsano. sometimes hataa guriga dadka jooga dhahay environmental science maxaa u baranay, maxaa ku taraa, ma fahamsano muhiimadda. hadda waxaa marka in kuliyadda aan fahmay muhiimadda ay leedahay environmental science xaafadeeda dadka dhan waa fahamsiiyey. hataa waagii hore markii oo waxyaalaha plastic marka isticmaalo wadada iska tuuri jiray. hadda laakiin chocolate waxa isticmaalaya hataa marka cuno boosada ku ritaa ilaa ka gaar meel qashin ku rido. dhowrista dhirta iyo beeristeedu waa howlaha ugu badan ee ay qabtaan ardayda barata cilmiga deegaanka, maadaama ay og yihiin muhiimadda ay dhirtu u leedahay badqabka deegaanka. Cabdinaasir Xasan waxa uu sharaxayaa muhiimadda uu cilmigani u leeyahay deegaanka. horta maadada environment-ka aan baranayno waa fil aad muhiim u ah bulshada,
isla markaana lagu soo baraarugay adduunyada qaybaheeda kala duwan ee sanadihii u dambeeyay ay ku soo baraarugayeen markii la arkay dhibaatada faraha badan ee adduunka ka dhacaya haddii ay lahayd climate change, global warming, wasaqowga hawada, waxaas ay sababeen qiica faraha badan hawada lagu sii deynayo. Marka jaamacadda ummadda waa u mahad celinaynaa inay ka mid noqday jaamacaddii ugu horreysay ee bilowday cilmigan environmental science oo muhiim u ah bulshada qaybaheeda kala duwan. Sida uu ognahay waddankeena Soomaaliya waxaa ku soo laabto abaaraha iyo fatahaadaha, taasay u wacan tahay isbeddelka cimilada iyo nabad guurkii iyo dadkii aan fahamsanayn dhirta muhiimadda u leedahay. Dhirtii la jaray waxaas dhan waxay sababeen in ay dhacaan marna dadkii ay abaar dhacdo marna ay dhacaan fatahaado, taasay u wacan tahay marka dadkii aysan fahamsanayn ku baraarugsaneyn muhiimadda uu deegaanku leeyahay. Marka filligan waxaan ku doortay maadaama aan ogaaday muhiimadda uu deegaanku bulshada u leeyahay, marka waxaan ku doortay inaan wax ka bedelo ama intii khibradii jaamacadda ummadda waxaan ka faa'iidnay inaan bulshada ku celino. Haddii waxaana booqannay iskoolaadka hadda magaalada Muqdisho ku yaala waa booqannay, wacyigelin u sameynay, meelaha qaar dhir beeris ku sameynay. Jaamacadda ummadda qaybaheeda kala duwan dhirtan waxaa bartay ardayda cilmiga deegaanka baratay. Marka maadadan environmental science waa maaddo aad muhiim u ah bulshada. Jaamacadda ummadda waa ku buurinaynaa dadaalka ay sameysay. Sidoo kale waxaan ku baaqaynaa jaamacadaha waddanka qaar hadda inay bilaabeen, sidoo kale waxaa u mahad celinaynaa inay bilaabaan jaamacadaha kale maadaama ay very important tahay bulshada. Soomaaliya kama da'o baraf, balse waxaa dhacda fatahaadyo iyo abaaro soo noqnoqda. Balse khubaradu waxa ay ka digayaan qorraxda iyo cimilada oo isbedela in ay ka dhalan karto caafimaad darro aad u xooggan, taas oo ay sababaan dabaqadii ozone oo meeshii ka baxda. annaga waxaa nagu xeeran oo Allah subxaanahu wa tacaala uu yacni daryeel nooga dhigay dabaqad la yidhaahdo dabaqata ozone. dabaqadaas waxay ilaalisaa bani aadamka ayay ka ilaalisaa dhibaatada ilayska qorraxda iyo roobabka sunta ah ayay ka ilaalisaa iyo dabaylaha iyo dheelitirnaanta deegaanka ama cimilada. lama lahantaas haddii ay dhibaatada soo gaarto kaarboonka uu bato waxaa imaanayso inuu yaraado dhibaato inay gaarto ozonka nagu xeeran oo naga ilaalinayay ilayska qorraxda. ilayska qorraxda wuu wanaagsan yahay, laakiin waxaa jira ilaysyo la yiraahdo oo dhibaato u keeno oo ishcaac dabaqat alxamraa ilayska gaduudan la yiraahdo, kaas oo wato macnaha wax bini aadamka seeliskiisa ama unugyadiisa aysan iska difaaci karin oo ku keenayo inay maaragtay sababaan kansar fara badan iyo cudurro fara badan. Allah subxaanahu wa tacaala raxmaddiisa wuxuu nagu ilaaliyey ozonkaas inaan ilaashano waxaa lagu samayn karaa in la yareeyo kaarboonka in la yareeyo waxaa loo baahan yahay dhir fara badan in maaragtay la adeegsado, isla markaas dhirtaa faraha badan la beerana in la yareeyo oo laga faa'iidaysto ilayska qorraxda oo daaqa loo bedelay ama energy loo bedelay iyo dabaylaha in laga shito shidaallada laga dhigto. sidaas waxaa yaraanaya kaarboonkaas oo saameyn ku yeelanayay dabaqadda naga korayso oo na ilaalinayso oo ilaahay nagu ilaaliyey inaysan hallaabin oo aysan khalal uusan ku imaanin. taas waxay keenaysaa bini aadamkii iyo noolihii oo dhan inay nolol wanaagsan ku noolaadaan, roobabkii inay soo noqdaan, biodiversity-gii inuu soo noqdo, noolihii kala gedisnaa oo jaadadka kala gedisan ahaa inay yimaadaan oo ay ku noolaadaan siday awalba ugu noolaan jireen. isbeddelka cimilada waa mid saameeyey dalalka horumaray iyo kuwa loogu yeera dunida saddexaad, mana ahan wax u gaar ah dalalka warshadaha ku horumaray. haddaba khubarada deegaanka ayaa aaminsan in isbeddelka cimilada aysan ahayn wax la dhayalsan karo, loona baahan yahay in lagu dadaalo sidii loola qabsan lahaa looguna gaashaaman lahaa. nolosheenna waxaan u baahannahay inaan la qabsano isbeddelkaas cimilada, sidoo kalena waxa loo yaqaan behavioral change, qaabka u noolnahay inaan wax badan ka bedelno oo ah qaab marar badan khatar gelinaya bey'adan ku noolnahay. tusaale inaan yareeno waxyaabaha bey'ada wasakhayn kara oo ka mid tahay shidaalkaas hawada kusii deynayno, qiicaas hawada kusii deynayno inkastoo uu yaryahay intaan sii deynaba. sidoo kale isticmaalka bacaha inaan yareeno iyo plastikiska shakhsi ahaan iyo ganacsad ahaan iyo institutions ahaanba. dowladduna inay regulate gareyso oo shuruuc ka soo saarto dadkana ku dhiirigeliso incentives ku bixiso waxaas inay dhacaan. dabcan dowladda shaqo fiican talaabo fiican hadda qaaday oo bilow ah in dhir la beero oo campaign dhir beerisa oo mashruuc Soomaali cagaaran madaxweyne ku dhawaaqay. annaguna kan waxbarasho ahaan macad ahaan qeybaan ka noqonaynaa fulinta mashaariicdaas. dadku marka inay u dhegnuglahadaan si dhab u qaataan aysan u malayn mashruuc dad kale leeyahay iyo
wax dalka horumar kaliya khuseeya soon ahayn wax dadkeena iyo dalkeena khuseeya saameynaya oo dadkeena noloshooda khatar badan gelinayo in aad u faano. sanadkii 2018 jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ayaa ku baraarugtay baahida loo qabo cilmiga deegaanka. Dr. Maxamed Rashiid waa hormuudka kulliyadda beeraha iyo cilmiga deegaanka waxa uu sharaxayaa aragtida ay ka qabtay jaamacadda. jaamacadda ummadda Soomaaliyeed markii u horeysay waxay aasaastay kulliyadda cilmiga beeraha taas oo muhiim u ah yani wax soo saarka dalka iyo nolosha wanaagsan ee dadka Soomaaliyeed. maxaa yeelay waxaa soo noqday gaajo fara badan oo ah mid dabiici ah iyo mid aan dabiici ahayn. مثلا roobabkii inay yaraadeen, dagaalo fara badan inay dhaceen, taas waxay keentay dadkii inay dalagyadoodii beeran waayaan, inay khayraadkii ka faa'iideysan waayaan. markaas jaamacadda ummadda waxay ka fikirtay sidii meesha looga saari lahaa gaajo inay soo noqoto in la helo kawaadir fara badan oo cilmiga beeraha aad ugu wanaagsan oo bartay. kuliyadda markii la aasaasay waxaa fikir soo baxay cilmiga deegaanka inuu saameyn uu ku socdo fara badan oo Soomaaliya ay sii xumaanayso. roob la'aantan iyo roobabka yaraaday iyo cudurradan faraha badan markii la daraaseeyay waxaa la ogaaday sababta inay tahay deegaanka oo isu dheelitir la'aan ay ka timid iyo bini'aadankii Soomaaliga ahaa oo yani aad si xad dhaaf ah ula dhaqmay deegaankii oo u haleeyay. mar walba oo deegaanka la haleeyo oo si xun loola dhaqmana waxa weeye way ka soo muuqataa saameyntiisa waxayna u soo gudubtaa bini'aadamka. maxaa yeelay roobabkii ayaa yaraanaya, dhirtii haddii la jaro waxaa yaraanaya roobabkii, waxaa yaraanaya xayawaanadii ku dhex noolaa. waxa la yidhaahdo isku dhafka noolaha ayaa jiro oo biodiversity afka qalaad lagu yidhaahdo. biodiversitygaas hadduu lumana waxaa lumaya waxyaabo badan, sida loo soo celiyana way adag tahay runtii. meelo yacni aad u wanaagsanaa oo deegaano wanaagsan oo hodan ahaa bini'aadankii markuu si xun ula dhaqmay inay hijroodaan, inay ka haajiraan noolihii meesha ku noolaa oo qiimaha badnaa oo sharafta badnaa inay haajiraan oo waddankii ay ka baxaan ayaa aad timid. isla markaas waxaa weeye in lagu soo celiyo deegaankii siduu ahaan jiray oo lagu dadaalo oo la fahmo oo la barto ayaa horta jaamacadda ay ka fikirtay. markaas ayaa waxaa la aasaasay qaybtan deegaanka, cilmiga deegaanka. isla markaasna maanta alxamdulilah rabbil caalamiin Soomaalida waxaad moodaa inay aad u fahmeen oo ma aragtay isbeddelkii cimilada la fahmay, dhibaatadii inay aad u qeexan tahay ayaad moodaa. arday badan ayaan soo saarnay oo jaamacadda ummadda ay soo saartay gaar ahaan kuliyadda beeraha iyo cilmiga deegaanka. ardaydaas oo aad ku qalabaysan cilmi runtii aqoon durugsanna u leh siday ula tacaamulayaan ama ula dhaqmayaan deegaanka, siday u horumarin karaan, siday u soo celin karaan, siday u ilaalin karaan deegaanka. yacni aad loogu tababaray oo aad loo baray ayaa joogo. alxamdulilah maanta rajada way wanaagsan tahay. halkan haddii laga sii ambaqaado oo la ilaaliyo ma aragtay dhirtaas waxaa imanaya wax badan oo faa'iido ah ayaa ku soo noqon karo. waa la qaban karaa Soomaaliya maxaa yeelay warshado badan annaga ma lihin. meesha uu yacni isbeddelka cimilada meeshay ka timidna annaga ma nihin, waxaa weeye waa wadano kale nooga timid. marka inaan u adkaysano oo la yidhaahdo environmental adaptation annaga inaan samayno oo aan adkaysi u yeelano. adkaysi waxaan ugu yeelan karnaa deegaanka in la cagaariyo, dhirta ugu faraha badan ugu badan magaalo ha noqoto, miyi ha noqoto, waddo ha noqoto, beer ha noqoto, in yacni dhir fara badan la beero lana koriyo la dhaqaaleeyo. dhirtaas inay waaweynaato wuu yaraanayaa ilaahay idankiisa sanadaha soo socdo. isbeddel wanaagsan ayaa imaan kara oo ma aragtay deegaankeenna aan saameyn ku yeelanaynin waxyaabaha adduunka ka dhacaya. waddankeenna waddan baraf leh ma aha, waddan qoraxdiisa ay 40 iyo wixii ka koreeya ay gaaraysana ma aha. waa dhul muctadil ah, meeshii ugu wanaagsanaa adduunka. noloshaas ayaa looga nool yahay. Soomaaliya haddii la ilaashado way sii socon kartaa. noloshaas nolol wanaagsan ayaa laga dhigi karaa. Soomaaliya waxaa ku soo noqnoqota abaar, taas oo aan ilaa hadda loo helin xal waara. isbeddel ku yimaada cimilada iyo dhirta oo la jara ayaa sababta abaarta ku dhufata qaybo ka mid ah dalka. balse xiriir noocee ah ayaa ka dhaxeeya isbeddelka cimilada iyo abaarta aan kala joogsiga lahayn. dadku aad ay u yaqaanaan inay dalka abaar ka dhacdo, roobka yaraadaan ama fatahaado dhacaan. iyaguna waxaa sabab u ah
sabab waa isbedelka cimilada. Dadku badanku ma yaqaanaan sida isku xir lahayn labaduba. Inuu roobku yiraahdo waa issue la xiriira isbedelka cimilada, waa climate issue, waa roob inuu yimaado ama roobku inuusan imaan, ama kulaylka kulka inuu ziyaado ama inuu yaraado. Waxaa aad u sababaya marka haddii dhirtii aan jarnay wasaq badan hawada lagu sii daayay oo badankood anagu sabab u ahayn in dal qaarkood oo marka hore u nugulaa oo dhulkan waxaa la semi arid, dhul oo qaleel ah oon doog badan ahayn, dhul doog badan ma aha dhulka Soomaalida marka la fiiriyo. Markii loo fiiriyo dalalka dariskana la sida Kenya iyo dalal badan u dhow gobolka. Marka waxaa aad u fududaatay inaan u nugulaano isbedelkaas cimilada. Isbedelka marka waa adduunka oo dhan maadaama hal koon aan ku noolnahay wax iswada saameynaya, waa dalal badan saameynaya. Waa aragtay sanadkii la soo dhaafay abaaro meel badan ka dhici jireen adduunka, ka dhac Yurub abaaro ka dhaceen, dalal badana waxaa ka dhaceen fatahaado badan. Marka wax u gaara dalalka faqri kaliya ma ahane, laakiin waxa adduunka oo dhan istaabanaya waay. Marka waana abaarahaas iyo fatahaadahaas iyo roobkaas oo yaraaday iyo labadii sano u dambeysay weliba waxaa anaga cusub aan arkaynay ayax oo duulayo oo malaayiin ah in beerihii soo dego oo beerihii xaalufay arkayn. Waxaasoo dhan marka waxaa sababaya isbedelka cimilada sabab ah. Waxaasoo dhan marka wax oo yani sabab la'aan u dhacay ma ahayn. dadku waxa ay ahaayeen reer guraa u guura hadba meesha barwaaqada ah, roobabkuna waxa ay ku di'i jireen xilligooda, halka dhirtuna ay ahayd mid ciidan, balse dhirtii oo la jara ayaa sababtay nabaad guur ku yimaada deegaanada qaar. haddaba si loo xakameeyo isbedelka cimilada waxaa loo baahan yahay barashada cilmiga deegaanka. dadkeena Soomaaliyeed waa dad reer guura ah. dadkaas reer guuraaga ah badankood way yaqaaneen cimilada iyo deegaankana way yaqaaneen. meesha markay xaalufto way ka guuri jireen, waxay tagi jireen meel daxan oo dhirteedii aan weli la daaqin, cawskeeda aan weli la daaqin, biyihii ay yaalaan. roobkana wuxuu imaan jiray waqti go'an oo yaqaanaan ayuu imaan jiray inta badan, maxaa yeelay deegaanka ayaa wuxuu ahaa hodan. geedaha lama jari jirin, geedaha waaweyn, geedaha qiimaha badan lama jari jirin. laamaha yaryarka ayaa geedka baarkiisa ayaa loo jari jiray xoolaha. taas markii laga soo tegey dadkii waxaa weeye miyiga waxay yimaadeen magaaladii. waxaa dad ku haray yani aqoon badan aan u lahayn, wacyigoodana uusan jirin, wacyigelinna ma jirin. jaamacadda ummadda waxay markay aasaastay cilmigan deegaanka waxay ugu talagashay dadka Soomaaliyeed inay ku ilaashadaan deegaankooda oo ay fahmaan. runtii maxaa loo baranayaa deegaan muxuu yahay? dadka waxaa laga yaabaa inaysan u arkin wax weyn. wax walba inay yani waxay keenaysaa deegaanka inuu ku yimaado isu dheelitir la'aan inay ku yimaadaan oo dhir badan la jaro ayadoo macno weyn aan laga lahayn. taas waxay keenaysaa marka inuu ku yimaado isu dheelitir la'aan deegaanka inuu ku yimaado. deegaanka halkan waxaa lagu daraasayaa deegaanka siduu ku nabadgeli karo iyo noolaha ku nool sida ay ugu noolaan karaan sida ugu wanaagsan ayaa cilmigan oo dadka lagu bartaa. runtiina arday aad u fara badan oo ilaa iyo 100 ku dhadhow ayaa hadda qalin jabinaysa dufcaddii saddexaad ay marayaan. alxamdulillah waxaan rajaynaynaa mar dhow inaan badino oo dad fara badan aan qaadano hadduu ilaahay ka raali noqdo mustaqbalka soo socdo. aad inay u weynaato kuliyadda beeraha iyo xataa kuliyad inaan usii bedelno waan rajaynaynaa insha allahu oo ay noqoto kuliyadda cilmiga deegaanka lagu barto iyo takhasusiyadii kala gedisnaa ama qaybihii kala gedisnaa waaxyadii kala gedisnaa aan u samayno. Soomaaliya kama mid ahan dalalka ku horumaray warshadaha ee qaybta lixaadka leh ka qaata wasaqowga hawada. haddana waxaa saameeyey dalalka horumaray kuwaas oo ay warshadahooda hawada ku sii deeyaan qiiq fara badan maadaama aan ku wada noolnahay hal meere. dadkeenu dhibaatooyinka maanta wajahayaan badankood iyagu yani ma sababin. adduunkana wuxuu kala baxaa dalalna waxaa la least developed countries, dalal tacbaana oo horumar badan ka jirin si dalkeena oo kale, iyo dalal oo horumaray oo developed countries sida dalalka la isku G20 oo kale oo dhaqaalahood aad u booran yahay. warshado waaweyn ay leeyihiin, waxayna ka faa'iideysteen isbedeladii kacaanka warshadaha ka faa'iideysteen. dalalku saas ku horumaray maadaama hal adduun oo earth la yiraahdo meer la yiraahdo earth oo ku noolna dhamaanteen waxay saameynayaan marka wasaqowgaas oo dhowr boqolaal sano hawada lagu sii deynayay inuu meel kale adduunyada ka saameeyay.
يعني wax kala furma ecosystem isku xiran oo aad u saameynaya ayaa ku wada nool dhamaantii dad aad u kala fog oo kala meero kala nool mani waan run ina anaga contributionkeena oo hawada masqooda ku leena aad u yartahay laakiin adduunku wuxuu sii yimaadaa madallo loogu doo arrimahaas maadaama yihiin arrimo caalami yihiin aysan ahayn arrimo dal u gaara ma aha dal kastan si gaar uguma xallin karo yani uguma hadli karo waa in miis lasu yimaadaa kulamo lasu yimaado waxaa ka mid ah shir sanadlaah ee UNT dowladaha isu yimaadaan kii u dambeeyay ka dhacay Masar oo madaxweynaha Soomaaliya joogay wafdi badan oo dowladda Soomaaliya ay joogeen anagu aan joognay urur badan oo ka shaqeeya arrimahan ay joogeen waxaa looga hadlayay sidee loola tacaalaa isbedelka cimilada gaar ahaan dalalka soo koraya oo sidan oo kale ah oo aad u saameynaya dalalkaas waxyaaba laga hadlaya waxaa ka mid ah inay yareeyaan qiica hawada ku sii deynayaan annagana maadaama dhibaato naga soo gaarayso qiicaas ay magdhow bixiyaan yani loss and damage fund wax loo yaqaan inay bixiyaan waa markii ugu horreysay 30 sano oo discussion noocaas socday oo lagu heshiiyey dalalkaas inay magdhow siiyaan dalalka soo yani soo koraya sidoo kale marka tusaalahan abaar dhacdo oo kale dadku gargaarka u baahan inay iyaga bixiyaan markii falaadis ama daadad dhacaan buudooyinkii wadooyinka baabaa inay iyaga dhisaan marka annaga markaan la qabsano isbedelkaas oo aan resilience yani aan dhisno aynan ku baahan sidoo kale dowladahaasna aan la xisaabtano ay yareeyaan marka si maadaama iyagu hawada hor wasaqeeyeen annaga kuweena soo koraya inaan ka fikirno alternative energy kale aan ahayn midka caadiga hadda la isticmaalo oo fossil fuelska oo hawada sii wasaqeeyo oo aan ahayn isticmaalno si warshadaheena u dhismo aan horumarka dabcan aan ugu baqsan waxa qasab ah inagu nafteena horumarno si faqriga aan u baxan waa qasab wax shaqo kuma jiro marka waxaan ka fikirnaa green growth ma jira horumar ka duwan kan maanta iyagu ay gaareen ee shidaalkaasi gaareen taasna waa suurtagal dalalka badankood marka waxaa laga fikirayaa in 1.5 degree centigrade hoos in looga dhigo qiica hawada aan kusii daynayno taasoo marka adduunka oo dhan dan ugu wada jirto in badan oo ka mid dalalkaas waxaa laga yaabaa inaysan talaabooyin hore aysan weli qaadan laakiin dabcan dee adduunku waa ogtahay waa unequal adduunku fair ma aha danna aaday horumareen inna hadday soo horumaraysaa awoodda iyo qubaddana waxay ku dhisan tahay horumarkaas dhaqaalaas leesti ku xiran tahay marka waxay saameynaya waayo wax kala mara maahan waxaan rajaynayaa haddii dal kasta iyo qolo kasta doorkeeda qaadato in uun mustaqbalka fog xal la gaari doono caqabada kala duwan oo mid weliba saameynteedu leedahay ayaa soo wajahay deegaanada Soomaaliya kuwaas oo ay ka mid tahay fatahaadaha abaaraha soo noqnoqda iyo hoos u dhac ku yimaada dalagyada qaar cali cabdirashiid waxa uu rumaysan yahay in sababahaas oo isbiirsaday daraadood ay ku qasabto inuu soo xirxirto barashada cilmiga deegaanka doortay markaan arkay caqabado fara badan oo jira soo wajahaya maaragtay deegaankeena ha noqoto isbedelkii cimilada oo soo saa'idayo ha noqoto maaragtay dalagyadii dalka laga sugi jiray oo maaragtay hoos u dhac u yimid isbedelka cimilada saameyn ay ku yeelatay darteed ha noqoto fatahaadihii webiga oo soo laalaabtay oo xiliyo badan oo aan la fili jirin maaragtay darteed ku soo laalaabtay ha noqoto maaragtay dhirtii oo xaaluf lagu sameeyo bulshadii oo aan fahansaneyn dhibaatada maaragtay xaalufinta iyo dhirta oo la jaro dhibaatada ay leedahay intaasoo dhan markaan arkay ayaa igu dhalatay inaan barto maaragtay kuliyadan cilmiga deegaanka agaasimaha macadka cimilada iyo deegaanka ee jaamacadda simad ayaa rumaysan in haddii aan si dhab ah loo eegin isbedelka cimilada uu halis ku jiro jiritaanka Soomaaliya haddii aanan wacyigeena sar u qaadin aanan si degdeg ah arrintaas aan ugu shaqeynin sidii loo xakameyn lahaa waxaa halis badan galay jiritaankeena mustaqbalka ummad ahaan ay halis badan galaya haddii dalka uu noqdo dal aan lagu noolaan karin oo laga haajiro noqdo sababna u noqoto isbedelka cimilada yani khatar ka weyn ma jirto hadhowtiin haddii saas u fogaato xaaladana waad ka qanaysaa markas la xaliyo laakiin hadda waxaa joognaa xilli aan door ku leenahay xalinteeda wax badan aan ka qaban karno aan isu bahaysano aan barano aan fahanno aan talaabo qaadno sidii loo xakameyn lahaa waxna loo qaban lahaa isbedelka cimilada qorraxdu waa isii kullaanaysaa cimilada adduunkuna waa isbedelaysaa Soomaaliduna kuma baraarugsana muhiimadda uu leeyahay deegaanka taa waa sababta aynu maanta barnaamijka nabaad guud ahaantiisa ugu soo qaadanay maxaa deegaan la yiraahdaa guud ahaan waxaa intaas inooga eg barnaamijka nabaad oo aad ka daawanayseen Astaan TV anoo Cabdiqaadir Maxamed ayaa idin la socodsiinay tan iyo inta aynu kulmi doona barnaamijkan mid la mid ah sida iyo nabadgelyo